asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal kuu soo dhowaada barnaamijkeeni taariikhda tariishooyinka iyo atoorayaasha barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa taariikhda Cretis Anon fadlan intaanan muuqaalkani u gudagelin sabskraibta nagu caawi sidoo kale like-ta nagu dhiirigeli like-tu waxay naga caawinaysaa in muuqaalku gaadho dadaad u tiro badan Cretis Anon waxay dhalatay 27 Julaay 1990 waxayna ku dhalatay New Delhi, India. Waana tariishad inta badan ka soo muuqatay filimaanta Hindiga waxayna shahaadada heerka labaad ka qaadatay macadka JB Institute gaar ahaan Information Technology. Intaasi kadib waxay si kooban uga shaqaysay moodalka halka filimkeedii ugu horeeyay ee Ninokadin ay soo saartay sanadii 2014. Sanon waxay ku guuleysatay Filmfare Award for the Best Female. abaalmarintani ayaa la guddoonsiiyaa atoorayaasha ama tariishooyinka ugu jirista wanaagsan waxayna ka mid noqotay tariishooyinka ugu jirista wanaagsan marka lagu guda jiro jilista aflaanta Hindiga. ha yeeshee isla sanadkaasi 2014 waxay soo saartay filimkii lagu magacaabayay Hirobanti. filimkaasi oo jiristiisa uu kala qayb qaadanaya Tiger Shroff. sanadkii xigay ee 2015 waxay soo fasaxday filimkii Diwali halka ay mar kale faraha ka soo qaaday filimkii la magac baxay Barli Ki Barfi 2017. waxayna sanadkii 2019 soo saartay filimkii Luka Jobi. isla sanadkaasi 2019 waxay ka qayb qaadatay jirista filimkii Houseful 4 oo ay jiristiisa ka qayb ahaayeen xidigaha Bollywoodka oo ay ka mid yihiin Baby Doll, Ratish iyo Akshay Kumar. Cretis Anon waxay ka dhalatay qoys ku wanaagsan waxbarashada waxaana lagu magacaabaa aabbaha Kriti Rahul Sanon waana xisaabiye sare halka hooyada dhashay lagu magacaabo Jita Sanon waxayna professor ka tahay jaamacadda Delhi. walaasha la dhalatay Kriti oo ahaan ka yar waxa lagu magacaabaa Namr Sanon. Kriti weli lama guursan. isku soo wada duubo hantida ay haysato Cretis Anon waxaa lagu qiyaasaa lacag dhan $2 milyan oo dollarka Maraykanka. ku darso kaliya maaha atariisho sidoo kale waa gabadh ka shaqaysa moodalka. barnaamijku intaas ayuu inoogu egyahay daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano. barnaamijkanina waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaasina halkan idigala socodsiinayay anigoo Maxamed Jeeka. barnaamijkan barnaamij xiga intaynu ku kulmi doono waxaan iga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.